هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومام الصومالي أصحابتي دي يوتيوب وإذن السلام maanta toole waxaan halkaan ammaan iyo sharaf ka mudan oo aan rabaa inaan ka sharfo oo aan anagu xumintayada aanu ku leenahay dhismaha dalka aan ka sheego marwo marwo sayna macallin the queen of Somalia maxay ahaytoy gabadhan waa Saynab Macallin waxa weeyaan waa madaxweynaha haweenka Soomaaliyeed waa magnitude-ka ka dambeeyo madaxweyne Farmaajo waa magnitude-ka ka dambeeya nin kasta oo wanaagsan naag baa ka dambaysa maxay ahaytoy queen Saynab Macallin Allah sharfo Allah barakeeyo Thank you very much. You know why am I saying that? When a man nina marka uu rabo inuu wadan leed garayo ama uu tala gaaro inuu qofka ugu horeeyo wuxuu xaaskiis honey, what do you think it is? Say kula aragtaa marka Farmaajo iyo maskaxda aad arkaysiin iyo aqligan wuxuu rag oo dhan uga duwan yahay uga hambalsan yahay uga naxariis badan yahay ilaahayna waa u dhaliyay Saynab Macallin oo hooyo Soomaaliyeed oo qurbo soo aragtay oo caruur soo dhashay qurbo ku soo korisay ayaa gadaashiisa saa u joogtoo leh halkaa hooyooyinka uma roon halkaa dalka uma roona arrinkaa maslaxaddaa ku gad arrinkaa sidaas dheh dalka waxa hogaaminayo reality-ga iyo iftiinkan aan arkayno xalay ilaahay khayraasiyo gabar baa isoo wacday waxa la ii sheegay caruur Soomaaliyeed arrinka oo ilaa arrinkaas dhamaystirmo inaan sheego ma rabo dal wadan in laga qaato la rabay gabar baa ilaahay baan kugu dhaartay wadanka iga soo wacday gabadhii maxkamadda taagneed ayaa automatically inta safaaradda la wacay yalla yar uga qaad baasaboorada halkaas ma garat waa dal Yurub ku yaala markaasaa la yidhaha laga rido Muqdisho safaaraddu saasay baasaboorada isugu diyaaris caruurtii jeelasha Liibiyaanka u xirnaayeen oo la dilayay waad aragtay sida looga soo daayay Seychelles sida looga soo daayay waad aragtay India sida looga soo daayay waad aragtay wiilashii maxay ahaytoy shabaabka iyo baqtiga iyo qurunka ku shaqaysan jiray oo kuwa tuutii militariga dalkooda xirtay oo dalkooda difaaciisa u taagan waa kuwa jaamacadaha iskuulada jooga oo maskaxdaas oo dhan Saynab Macallin weeya ma fahamta ragu waa gees laakiin haddaan garabka lala qaban maxaa la dhihi jiray nin geesi haddaan garabka lala qaban ninka naag wanaagsan oo aqoon leh oo waxbarasho leh oo wanaag u dhalatay oo naxariis la haystaa naxariista kama tegi karo waayo lugaha qof baa ka dambeeya oo leh arrinkaas asaguna meel uu haystaa dumarkii carruurta say u aragtaa arrintaas markaa Saynab Macallin barwada sharafta leh madaxweynaha dumarka Soomaaliyeed hooyada sharafta leh oo hoggaanka wanaagsan ee aan daaraha dhisanaynin ee aan dadka dhacaynin ee aan dadka xadaynin aan dhul gadashada iyo dhul iibsiga iyo dhul boobka ku jirin ee aan qabiilaysiga iyo kala qaadka Soomaaliyeed ku jirin aad ayaanu halkaa salaan sharaf leh ka siinayna haddaanu nahay hooyooyinka iyo haweenka Soomaaliyeed halkaa ka wad hawshaad haysadna Allah kula garab gal waanuna ognahay hawsha aad haysid waanu ognahay maskaxda fayow ee Farmaajo ka dambaysa inay adiga tahay waanu ogsoonaa maasha Allah tabaaraka sidii Khadiija binti Quwayda diinta islaamka u soo taakulaysay ayaad Farmaajo u soo taakulaysay Farmaajo Toronto markuu imaanayeen maxay ay tahay doorashadiisa fundraising ka sameeynayni caruurtii oo yaryar iyo reerkii adiga hayay adaa noloshooda raadinaysay adaa u ordaysay waan ogsoonahay midaas haddaadan adigu sidaa yeeli lahayn ma u tallaabsadeen waxna ma aanu qaban karin markaa
sayna macallin salaan sare garabkaaga allah galo awlaadaadana allah kuu barakeeyo reerkaagana allah kuu xafido arrinta kale oo aan Soomaaliya idin sheegayaan idinka sheekaynaya Saynab iyo Farmaajo daris bay ahaayeen isku meel bay ku dhashteen laakiin deegaanka Soomaalida marka aad fiiriso laba deegaan ayay ka soo kala jeedaan deegaan ahaan ayagu laakiin waa carruur isla soo kortay oo iskuul isla soo dhigatay haddaba maskaxda kala duwan iyo maskaxda Soomaalida markay Soomaalidu isku dhafka tahay meel bay gaartaa inkaaro waxay ku dhacday waxa tuuladii ku dhashay aan soo dhaafino markuu dhowcibaan hagaya oo idhiisu iyo aqoontiisa waligiis wax kala lahayn quruxda ay wada jirka iyo faamilka kala duwani maskaxda iyo quruxda iyo aqliga ay keeni karaan Sayna macallin iyo Farmaajo ka arag sidaa gidiga yaha lagu daysado Saynab iyo Farmaajo gacmaha saah la isku qabsado garabka la isku qabsado Soomaaliya kama soo noqon lahayn godkay ku dhacday haddii aanay ahayn Sayna macallin iyo aniga iyo milyan ila mid ah oo Soomaaliya oo dhan wada dhashay oo isguursatay oo aan dan ka fiirin tuugu wuxuu fiirinayo ya reebel ee guur waagayaan guur intay guursatay carruurtooda corner kasta Soomaaliya ka timi kuna faraxsan waayo bigger picture waa inaad fiiriso picture-ka sawirka weyn adoo Soomaaliya heli kartid maxaa meel xun kugu xiraya maxaa qabiil xun kugu xiraya war maxaa qabiil laga faa'iido yaa maalin dhaweedaan ka hadlayay maalin dhaweedaan anoo meel fadhiyo wax samaynaya ayaan ka hadlayay ayaan wax isku hagaajinaya waxaan iri hawiye iyo daaro daniima ahan diraya isaaq daniima ahan dalkayga oo dhismay dantaydu tahay dadkayga oo israacay dantaydu tahay ubadkoo daryeel heray dantaydu tahay dugsiyadoo naloo dhiso dugsiyadoo naloo furay dantaydu tahay dariiqyadoo naloo dhiso ayay dantaydu tahay dadkayga oo israaca iyo dalkayga oo nabad noqdo ayaa aniga dantaydu iigu jirtaa I don't care qofku yahay qofkii dalkayga iyo dadkayga nabad keenaya oo aan dadka la simayo taasaa aniga iyo adiga iyo carruurtayda dan ugu jirtaa rebel there's nothing I don't think so weliga rebel waxay leeyihiin intaan cunay aad iyo aad bay u yarta ma garata maxaa marka dhibkiisa wixii dhibkaanba noo keenayso rebel maan oo carruurtayda maalin walba hooyooyinku saad aragteen u ooyhaya oo ilmahayaga dalkoodii ka qaxiyey balaa rebel qaadata waxaan idiin sheegayaa dadku haddii la wada jiro dadku maskax iyo aqoontaasaa laga faa'iidaa war wada jir haddaad rabtiin wada jirku quruxdiisa inaad aragtiin haddaad rabtiin war Sayna macallin iyo Farmaajo arka war xiriirka Farmaajo iyo Khayra u dhaxeeya arka anigu in badan baaba ka faa'iiday wallaahi billaahi markaan arkay sida Khayra iyo Farmaajo u wada shaqaynaya waxaan bartay iyo Sayna macallin maskaxda ka dambaysa Farmaajo oo ay dalka u dhaqayso maskaxda Farmaajo maskax hal nin maahan waa maskax qof dumar ka dambayso deganaanta siyaasadda oo waliba qof wax bartay oo aqoon leh oo hambala oo hooyo ah ma garat haddaad marka rabtid anigu waxaan ka bartay Farmaajo waa iska aamusan wixii la soo kulmaba waxaan u malaynayaa Sayna buu wixii Khayrana agtiisii soo fariisay markaasuu dhihi Sayna maxay kula tahay asagii Sayna markay isla rogrogaan Khayrana meeshuu fadhiyaa buu dhihi Khayra adigana maxay kula tahay speakerka inta u shido Sayna haddii carruurta Maraykan la joogto maxay kula tahay markaasay saddexdooda markay rogrogaan taladii wixii u soo baxa yay u yeeraan dadkii madaxdii la shaqaynaysay markaasay dhahan ayagoo talo ay ka saddexdooda horta soo fandheeyeen oo hooyana ku jirto taladii hooyana ku jirto dumarna ku jiro dhalinyarada ku jiro Farmaajona ku jiro ayaa la yiraahdaa Khayrana ku jiro
oo deganaantii hooyanimo haysata iyo aqliga hooyanimo odaynimadii iyo maslaxadii farmaajo wadata xooggii iyo kartidii iyo dadaalkii Khayra wadata saddexdaasaa la isku geeya Khayra waa kartidii iyo enerjigii iyo xooggii dalka drive garaynayay iyo codkarnimadii iyo qiiradii wadaninimo farmaajo waa odaygii talada rogrogaha iyo meel walba ka fiirinayay Saynab dumarkii iyo carruurtii bay matashaa oy wax alla wixii dumar iyo carruurta dantooda ku jirtay samaysaa waa maskaxda ka dambaysa dumarku ragga aad bay uga maskax badan yihiin saddexdaasu markay go-aan gaaraan ayaa dowladdii loo yeeraa oo dalka lagu dhaqaa ana marka aragkaa maxaan ka barta inaana keligay tale iskala boodi oo aan dadkayga la tashado oo aan carruurtayda la tashado oo aan maxay tahay odaygii talada maxay kula tahay markaas iraada markaan aniga carruurta tala isla keeno oon arrin dhinac walba laga fiiriyo la iska tusiyey markaa lagu dhaqaaqo waxaan kaloo bartay sidii madaxweyne farmaajo inaa gadaal in sidii Saynab oo kale inaa gadaal inta fariisto bal carruurta iyo reerka aan tartargeliyo oon iraado idinka iga xoog badani bal waxaa lii marka meesha qurux baa ka soo socota aad baan xalay u farxay marka laygu yiri carruurta baasaboor baa loo diyaariyey hadda diyaaradda muqdishoy ka degayaan dalkoodii bay tegayeen oo baasaboorka Soomaaliya adduunka meel walba looga bixi karaa oo looga tegi karaa aad iyo aad baan ilaahay uga xamdi dhaqa aad iyo aad baan ilaahay uga shukray because meeqaa ilmo wadamadan intuu yaraanta wax ku haleeyay dhinacna baan u bixi karin Minneapolis xalan abeen horaan ka arkay wiil gaajaysan oo jeel laga soo daayo cidna haysan oo meel aada aan haysan oo geed hoos taagan wuxuu cunala dariiqii buu ilmo ku noqonaya meel ka aada hadayna haysan marka midnimo quruxdeeda iyo sharafteeda haddaad rabtid iyo wada jirka Soomaaliya waa hal reer Soomaalida lagu sheegayaa waa halkaa reer oo farmaajiyo sayna macallin oo kaleet Soomaalida lagu sheegayaa waa aniga iyo carruurtayda oo kaleet Soomaalida lagu kala wadaay waa halkaa qoysoon anigu ahay iyo halkaa qoysoon reer farmaajo aqligi isku tago xoogii isku tago aqoontii isku tagto ayaa wax goysato gacmihii isaystaa waxaysto walaalayaal gacmaha isaysan hooyo walba Soomaaliyeedana sayna macallin way dadaashay garaad iyo sharaf siiyo hana loo duceeyo ayadii carruurteeda inuu ilaahay xafido iyo odaygeeda maxay ahayd madaxweynahan waa tagay kii kale noo soo socdan ilaahay waxaan ka baryaynaa mid khayr badan inuu alla nooga dhigo oo guru hooyo gabadh wanaagsan iyo guru wanaagsan qabo sidii Saynab oo kale adduunyada nin aan naag lahayn oo carruur lahayn madax lagama dhigto nin walba reerkiisa carruurtiisa la fiiriya intaan la dooranin waa meelaha ugu horeeyo laga fiiriyo ninku naagtiisa carruurtiisa hadaan si wanaagsan u dhaqin mas'uuliyad ma qaadi karo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sayna macallin thank you walaal